أنا وحجيا جود جولها دخل كبيرة هشينجاني ما أنتوا حشرفوا إنه إن لا كلنا بلا حمرويني سين الله له بلا جولها دخل كبيرة بنادري شينجاني يبلا بنادري حرير كود اللي تكسر دويه مركا وحكستو waxa ugu horeeyay waxa lagu bilaabo aayadaha quraanka waxaan noo aqrinayaa Ali Pakistan فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبركاته ما شاء الله anigoo ku hadlaya magaca odayaasha degmada Shingaani waxaanu mahadcelinaa odayaashii aan casuumanay oo naciibay beesha Bandhawow khaasatan malaakh buwa Muuda Cali aan ku leenahay waa mahadsan tahay casuumada aan ku fidinaad naga ajiibteen salaanka baadi waxaan meeshaan isugu imaanay inaan isbarano wada jirno banaadir oo midaysan aan ka wada shaqeyno insha Allah kulay hadalka waa la iga dambeeyaa meeshan waxa isugu yimid odayaasheena beesha Shingaani hadaan ku tilmaamo matalan nabadoonka oo beesha reer Sheekh Aydaruus oo ahna gudoomiyaha 16 oo Shingaani waxa ku xigo Shariif Abosto nabadoonka oo Ashraaf waxa ku xigo Umar Barfas nabadoonka Baafadal waxa ku xigo Ismaaciil nabadoonka beesha reer Xaaji waxa ku xigo Ali Xasan Ali Abati Shoble Ali Pakistan oo nabadoonka beesha reer Faqi Shingaani u fadhiyo waxa ku xigo Maxamed Axmed Aamir oo xokeeyaha guud 16 waxa ku xigo adeerkay Yusuf Abdirahmaan oo beesha Kooli waxa ku xigo Maxamed Saalax oo asna nabadoon waxa ka beesha Usmaan Kay waxa ku xigo beesha waxa ku xigo Busuur oo beesha Baasadiiq waxa ku xigo walaalkay Sheekh Maxamed Usmaan oo beesha Abakarow waxa ku xigo beesha walaalkay Axmed Usmaan beesha Faqi Cali waxa hadda nagu soo zaayiday walaalkay Ali Xasan Bilaal kulay adugiisa wada shaqeey jirteena ma leeyahay nabadoonka beesha oo waxa waaye Hermaanyo insha Allah barasho wanaagsan iyo anigoo nabadoonka beesha Cabdisamad Mustafa Jaamac Baafo agteedas fadhiya adeerkeen asiyo intii ka qayb qaadatay inaan saan u kulanno khaasatan waliba waxaan u mahadcelinaa walaalkay Xuseen Xaaji Maxamed Nuur iyo intii kale oo hilka waxaan rabaa walaalahay beesha Bandhawow hal codsiina idinka soo jeedsado codsigaas waxa way anaga 16 keen waxaan leenahay nabadoon qaas oo 16 gudoomiyo Aydaruus Xaaji wax walbo oo Shingaani khuseeya oo aad rabtiin inaad kala xaajootiin waxaan jeclahay in Aydaruus kala soo xiriirtiin halii qof rabtiin 5 dalbada 10 dalbada inuu as idin soo magacaabo oo hadhow asaga aad kala xisaabtantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وضياش دخنك حمرويني شنغاني واسكولها اسكويهين بلاها دخنك بنادريغا اسلامك سلامتي اسلامك ايدك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركله أنا وحجيا جود جولها دخنك بلاها شنغاني وحن جعلها شركة إن كأخريهم ورقد لقري وأنا عن قري تاريخ كتاغرس نتاعي لبعتني 3 بشي أبريل لبكون يكوي طبعا وحين كنت سعدتي وقداس
gudoomiyaha xildhibaanada beelaha banaadiriga oo markaas ahay xildhibaan Jeylaani Ikar Nuur iyo waxa kale u socotay gudoomiyaha golaha dhaqanka banaadiriga buu muddo ujeedadu waxay cabasheed waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa nuqul xeer lagu dhisay golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Shingaani iyo nuqul saxiixa kaabi qabiilada 16 beel iyo ku xigeenadooda golahaas waxa si rasmi ah loo aasaasay 11 Janaayo 2009 wuxuu golahaasi ka kooban yahay 32 xubnood oo ah kaabi qabiilka iyo ku xigeenadiisa hadafkii ujeedada golahan waa nabadeynta beelaha Shingaani iyo raadinta xuquuqda ka maqan beelaha Shingaani iyo waliba beelaha banaadiriga sida ku cad qodobka saddexaad ee xeerka golahan wuxuu mideynayaa 16 beel oo ku dhaqan Shingaani wuxuu yeelanayaa xuquuq iyo waajibaad siman isla markaasna waxaa laga guuray nidaamkii hore ee shanta Shingaani loo yaqaanay maadaama waqtiga uu la socon kari waayo kaasoo ku dhisnaa cadaalad darro maxaa yeelay wuxuu duudsinayay xuquuqda 11 beelood saadaradeed waxaan codsanaynaa in hadda wixii ka dambeeya bulshada reer Shingaani wax loogu qeybiyo 16 beelood mana jirto wax la yiraahdo shanta Shingaani waqadan waxa kalifay wuxuu ahay mucaawino oo markaas xildhibaanada oo reer Shingaani reer banaadiriga ka shaqeeyeen in la siiyo waxa loo qeybiyay meeshii 16 beel loo qeybin lahay waxa la siiyay shantii hore la siiyay marka cabashaas taas ka liftay marka hadda maanta shirkan waxa waa isxusuusin waaye waqadan ana xasuustaa koobi buuda xafiiska anaga xamri gudaha ku yaala marka golahan waa golo jiro la aqoonsan yahay ka diiwaan gashan yahay wasaaradda arrimaha gudaha asaaskiisa meel ka sargeeyay xafiiska madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka marka in dad hadda inkiraan oo wali ina wajadna wa aabaana in lagu shaqeeyo ma aha adduunka isbedel dhacay golaha ammaanka waagii hore joogtada waxay ahayd 4 wadan Mareykanka midowga Soviet Faransiiska iyo Ingiriis ahaayeen